kan musabixiye teamkiisu meesha waxay soo dhigeen xal wixii ay hayeen oo dhanbay soo dhigeen mid yar iyo mid weyn waxu maqan oo maanta halka uga dambeeya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kula wanaagsan daawada meelkiisa dunida afida ka joogtana mar kale muuqaal cusub soo dhawaada saaxiibayaal markii ugu horeysan soo martay waxaan ka codsanaa daawada muuqaalkana la gelisid boggeena Facebook Cabdirasaaq Maxamed aad ku soo biirtid bartan YouTube caawin official dadka cusub taana inaad la guud daashid si muuqaalkani meel fog gaaro aad iyo aad baad mahadsan saaxiibayaal markii inta laga yimaado maanta saddex arrin ma saaxiibayaal dooran ka hadlay anu mar walba waxaan jecelahay waxaan ka hadlaynaa soo koobno oo wax kooban waqti dheer dadka ka qaadana muhiimad heshin uu noqdo in ka badan 7 bilood iyo dheeraad magaalada Laascaanood dagaal ka socda dagaalkaas wuxuu dhaxeeya Soomaaliland iyo kooxaha ka soo horjeeda oo qaar ka mid ah dadka deegaanka la qalday ka mid yihiin oo aanu dhameyn inay oran kari u wada leeyihiin waa dagaal saameyn badan yeeshay dhulka Soomaalida noqday dagaal aad iyo aad loo hadlayo dagaalkaas waxyaabaha badan laga barto waxa ka mid ah in magaran saay dad aan aqoon oo isu keenay ayaa laga bartay dagaalka haddaba saddex arrin saaxiibayaal doona kala qaado wax weeyaan magaalada Garowe xarunta maamul goboleedka Puntland oo maanta ciidamo ka mid ah ciidamadii ka soo horjeeday madaxweynaha Puntland Dani tababar loogu soo xiray maxay ka dhigan tahay ama tababarkaas maxaa uu yahay ka kale saaxiibayaal doona ka hadlana wax weeyaan mid ka mid ah afyeenada guddiga 3 ee say sheegeen iyagu ismagacaabay Soomaaliland ka soo horjeeda oo hadlay oo hadalkiisa laga dareemayo magaranayay inuu wax badan magaranayay in isbedeleen bal saaxiibayaal waxaan doonayaa codkiisa muuqaalkiisa ma soo qaadan karno red manager baa ku xiran nin gaalan media soo gashay iskala muuqaalka diyaarsaday laakiin codkiisa in yaro ka mid ah inaan yaro dhageysano kan musabixiye teamkiisu meesha waxay soo dhigeen xal wixii ay hayeen oo dhanbay soo dhigeen mid yar iyo mid weyn waxu maqan oo maanta halka uga dambeeya waa hagaag ugu sii badanaya ama ugu sii dheeranaya maadaama muuqaalka red manager ku xiran yahay inagana dhibaato ay nooga iman karto magaranaysa idin kana soo gaari kara hada muuqaal ku sii badano magaranaysa ku sii fogaana waa yahay garaadku ama ninka oo hadlaya afyeenka garaadada Soomaaliland ka soo horjeeda oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Falaanug waxa uu sheegay in magaranaysa ay dagaalkaas uu dhibaato badan u geystay waxa uu sheegay in shalay oo ugu dambeysay san warbixinteedii tan ka horeysay baa idin soo dhigay qaybtan ka soo horeysay baan la helay idin soo dhigay in shalato dhibaatada ka dhacday goobta hayada aan u dhigmayntii maalmihii hore oo dagaalkaas ku shalato ka dhibadnaa oo ka cuslaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhibaatadaas mid iyagana dhibaato weyn ku hayso waliba wuxuu aad u sheegay in dhibaato magaalada gaadhay oo uu caawinayo hay'adaha caalamka iyo adduunyada inay tusayaan horta eragaas markaas way garaadadu ama ay ku soo celiyeen dadka ka dagaalamaya Laascaanood aad baan ugu qoslaa sababna ku sheegaya wax kastaaba intuu waxa leeyahay wax kastaaba intuu hoos kuugu aamusay hoos magaranaysa ay ku dadan yahay ayaa u sharaf leeyahay wadamada caalamka ama hay'adaha ama hada dhibaato ka camalsan leedahay Soomaaliland dhibaato noo geysatay hay'adaha caalamka xitaa hadii loo sheego Syria iyo Afghanistan iyo Yemen bay qaban lahaayeen marka dhulka Soomaalida laga yimaado in ka badan 30 sano dhulka Soomaalida dagaal ka socdeen ayaa ay dhameyn lahaayeen laakiin dhibaatay si geliyaan mooyaane waxa ku soo kordhiyaan ma jiro xalku gacmihiina ama gacmaha dadka deegaanka dawladda Soomaaliland ayaa ku jira oo lagu soo noqdo u qurux badan afayeenku waxa uu sheegay ama aqalku waxa uu sheegay sidoo kale Soomaaliland inay wada hadal diyaar u yihiin laakiin waxa ay ku xirayaan laakiin waxaan hadalka hadaba ka dareemay sababtan hadalka u soo qaadan dooni maanta inaan u falaqeeyo waxa weeyaan sababtan hadalka u dulistay maanta garaadka ama ninka aqalka hadalkiisa aan dooni inaan idla wada gaxooyo inaan dabacsanaan badan tii hore kala aan ahayn inaan ka dareemay oo Soomaaliland wada hadal waa la geli karnaa laakiin walba way ciidamadu la baxaan ay markii dambe oo aan aaminay in la soo hadlo ama in wax ka bedel hadalkaaga ama qofka jooga inuu ku hadalka wax ka bedel laakiin hadalku wuxuu ku bilaabmay si qabow oo aad u dhibiyar oo aqalku doonayo in Soomaaliland wada hadlaan oo magaranaysa dhibaatada labada dhanba haysata ma oran karo oo shakhsi baan ma oran karo Soomaaliland iyadoo caana la siiyo caana cabtaayo biyo lagu soo shubaamay dhankeeda ninka xaq kala soo dagaalamay xabad buu soo riday dad waxyeeleynaya bini'aadana oo qarankoodii dadkoodii difaacaya marka waxa weeyaan magaranaysa dadkaas soo diray iyagoo dhibaateynaya waxa uu sheegay in iyagu ka dhibaato badan yihiin walaal isagu wuxuu ka sii cabanaya waa sidoo isagu yiri inagu sanayna maaha aniga si qoysana maaha laakiin isagu hadalkiisa waxa ka mid ah hadallada uu yiri in magaaladan ay dhibaato soo gaadhay
dadkii deegaanka la dhibaatay waa soo isugu leeyahay laakiin qofkii soo qaranimadiisa dadkii soo horjeesta xiribaati wax kasta uu soo gaaraya ruuxa faanteen Soomaha hadalka aqalka waxa maanta hadaba ku jirtay oo ku bashaareynaya dabacsanaan badan waxaana codsanaya oo codsiga madaxda ama mas'uuliyadda dawladdu bal hadalkan ay dhigeystaan wuxuu ka baxay bulshada la wadaagaan waayahay intaasan kaga imanaya hadalka Cabdirasaaq Falaalu iyo magaran saayinu cabasho badan qabo waxaan dul istaagayaa Jimcaale oo ka soo horjeeda madaxweynaha madaxleedkiisa si dhamaanay dani maamul goboleedka Puntland oo ciidamo badan tabar ugu soo xiriyo dagaal la filayo ama sida u muuqato أنا ما كان ده أنا الأسكرية ما أركي حاجة نوع كار كرت صورة كوارد تنجيدة هي حياة حركة المقرن سيئة لا شاهد ما أنت الله صح حريت هبر إذا ما ظهر بقول كده إذا ما أصبح كوة شهين ما حتى يجروه والدنيا هي يدبر كريحية وحاول الدنيا الدنيا إنه الله سبحانه كل شيء تذكرتيانك بس لكن سمع لن كان يشوفوا موضوع مرة دي حركة عيدا مقرن ساي أي سيستان جمع على الدولة دي بدلن أما ما بقول بدلن وحكى بحياة أود بدنا حق بالله كيمانس مركا ما أنت تقال في شهر ثلاث ساعات كنت أجنبه وكوجين هاي كودي حق جروي الله نحو جركارنا أنا قف ولا الكينة أما ضد مسلمين أما ضد علينا اللي فرحوا أنا مضى الصوماليين تاع الصومال كهذا سوي اسمه مبدأ بقى عن مسنه هو مبدأ أنا مسنه وكان كوسا بندقية بس لكن الصومال لماذا مديدني تذكري قاعدين عنصر نمي لا بارد الجعل كلاس عاوز كل من كل من قبل هذا حس الصومالية كل من الصومال كده من علم القرن كمده أنتوا وطن الصومالية ده كل بيان كقف ولا الكه الصومالية دمشي سنة كيف العالم سيدا حركة قارات هذا استوى قلالم بالله يشوط طوبي أنا ترى هذا شرفكم معه ولا الكه وقف ولا الكايا وقف مكان ساي إلى هاي قصة صعبة وقف كل البلاد إنه يدلو مركانا تكون فرح وقف ولا الكه دنتي تاني أنا شرف إنه معها ككفر حين شرف معها روح فانتين صو معها haddaba si kasta aato dhibaato aad u badan baa garoow maanta ka taagan adana haw gargaaran Allah kala qaboojiyo inaga ilaahay calaadaha inaga qaboojiyo ilaahayna wanaag hayna karansiyo Soomaaliya hadii ay wanaaga ogolaan lahayd waxa nabad ku jira ogaan lahayd sida dadkayga dhowriyo 30 jirka maanta gaaray ama gaaraya ma garanaysaa inta nabad ku soo noolaay ogaan lahayd nabad wanaag ay leedahay runtii Ismaaciil ayaan wax wada qabsan lahaay marka Allah inoo gargaaro qodobka saddexaad ku soo gabagabeynaya waxa weeye tan iyo maanta wax dagaal inuu ku dhacay laasanood oo dareemiso dhibaato badan in gaadhay dadkii deegaankaas iyo dadka soo horjeeday Soomaaliya iyo kooxo ma garanaysaa ka soo horjeeday iyo ciidamada qaranka sharatiis leeyahay iyadoo taas u jirto maanta wax dhibaato kama dhicin magaalada laasanood xarunta gobolka Sool ee Soomaaliland aad bay nabdoon tahay wax dhibaataan lagama soo sheegin wax dib u dhici doon ilaahay baa og ka dhibaato soo socota Allah inaga qabtana dareenkaaga aragtida aad wadna la wadaag sida ay kala muuqataa ama sida ay aragtaa hadalka caaqilka afayeenkii guud ee guud ee 3 kaas ayagu sheegeen weeyaan ee laasanood ka dagaalamay aad baad mahadsantahay